si sare loogu qaado barashada xirfadaha farsamada gacanta loona sameeyo dhalinyarada fursado shaqo abuur ah ayaa maanta magaalada Baraawe caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu qabtay xaflad lagu soo bandhigayay xirfadooyin kala duwan oo ay baranayeen dhowrkii bilood ee la soo dhaafay si ay dhalinyaradan xirfadan mustaqbalka ay shaqo abuur ugu noqoto. Xafladan oo ay ku qalan jebinayeen ku dhawaad 15 arday oo isugu jirta dhalinyaro iyo haween ayaa maanta ka qalan jebiyay barashada xirfadaha tulista dharka noocyadiisa kala duwan. Xafladan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada, maalgeliyaha barnaamijkan Cabdulqaadir Sheekh Maxamed, culimaaddin dhalinyaro iyo marti sharaf kale. Ardayda ayaa halkan ku soo bandhigay xirfadda tulista dharka iyagoona si qurux badan u farsameynayay. Marti sharaftii ka soo qayb gashay barnaamijkan ayaa ardayda ku bogaadiyay dadaalkooda ku aadan sida ay u go'an tahay inay horumariyaan xirfadaha farsamada gacanta. waxaan halkan mahad ballaaran ugu celinayaa walaalkeen Cabdiqaadir oo juhdi ku soo bixiyey hantidiisa iyo xooggiisa u soo helay in arday ku hawshan meesha oo waxbarashada korontadii iyo waxaas meeshan loogu helay haddana ku xirnaamada maanta ay ku xigaan bikun iyo waxay ka dambeeyeen laba maalmood 3 maalmood kuwa quraanka kariimka ay markaas ku soo xigaan ninkii intaas sameeyey ilaahay markaas abaalkiisa ugu dhigo jannatul firdaws al-aala insha Allah taala. ardayda ninkii intaas markaas ku soo dadaalay ilaahay abaalkiisa jannaha ka dhigo. run ahaantii aad iyo aad ugu mahadsantihiin maadaama xafladan sharafta leh qalin jebinta ardaydan waqtiga iyo jahdiga la geliyay ee tababarka gacanta xirfadda gacanta. xirfadan waa asaaska nolosha qofka bini'aadamka si walbana aqoon u leedahay jaamacada ugu soo baxday xirfad la'aan noloshaada ma dhammaystirin. marka xirfadu waa asaaska nolosha qofka bini'aadamka. qofaan xirfad lahayn waa qofaan nolosha aqoon ka lahayn. وسلامتهم بين الرياضيات الحفظة الجبنة قصيدة المدريات مقعي وهذه الأفراد المحل وكبدا قصيدة وحصوب السيد أقامها وحان كبدا هاي عملية قصيدة وحصوب السيد هكذا لو حان وصول الساقي تنان شرحات كذا اليوم شرحات ومن وعطيدة كبدا عطيدة كل وحان كبدا هاي عطيدة وحبا أنا مقولينه وضد إلهي iska joogaan magaalada waxay ahaayeen arday waxaan idin leeyahay waxbarashada aan ku dadaalo qofka inadin garab taagan oo hadalka Cabdiqaadir Sheekhe oo ilaahay waxbarta hantii wax kasta uu idin siiyo oo ilaahay waxbarta yani waxaan idin karayaa inaad waxbaratiin oo horumar gaartaan ayuu rabaa. waxaan idin leeyahay markaa inaad waxbarashada ku dadaashaan aad ugu duceysaan mar waliba waayo qofku dhammaan xaal waxbaro waxbaro haddana halkaas soo istaagta qarash kugu bixi wax kasta oo ku siiyey haddana qoraay kaada waxbaro wax kasta ay weydii walaa meelaha ma jirto run ahaantii. waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysta fursadda ilaahay ku idin siiyey ayaan idin leeyahay weliba khaasatan jiilka hadda soo koraya ayaan soo leeyahay adaalkayna waxaa leeyahay waa mahadsantahay waan ku mahad celinaynaa insha Allah. ilaahay waxaan ka baryaa xawaalkaaga janno inuu ku dhigo fi dunya wal aakhira. Maalgeliyaha barnaamijkan Cabdulqaadir Sheekh Maxamed ayaa ardayda kula dardaarmay inay muujiyaan dadaal dheer oo ku aadan ka miro dhalinta hadafyadooda si ay u noqdaan kuwo waxtar u leh bulshada. may mahad jeediyaya macallimiinta oo ardaydan war soo barta waqtiga jilid waqtiga qaali jiliyaan oo ay ka dadaaleen oo ilaa heerka soo dirsan jeebka oo inta hortaan joogeen alxamdulillahi rabbil caalamiin. farxad oo qaali oo alsan koob karna qalbiga ku dareenaya oo jeebka aan dhahay shilinkii walki bara oo kifaanaya alxamdulillahi rabbil caalamiin. tan lamaad ardayda oo koorsigan oo shirkaanka farsamaday barata iyo may ka dhahayaan ardadaada gadaalkiisa soo dadaashan cid alki dhaafna qofka walse bari kara usoo barada marka waxaatay walbarasooda maska shaqaysada
سكتاف وصور كساي شغل مصباح مركب ماي كدر دارنا يا عبديد أو حفلتها صوبرت إن أو هون يمدل والبرشيدة حرقانك إلمو إمد كيسر درارو ما أهل شقان صوبرت والسلطان كر لن سلطان كر ما أهل شرقان وفكست مرياكين يقول لك طول الفضاي waa maalintii labaad oo lasoo bandhigayo barnaamij ku saabsan xirfadaha farsamada gacanta. Shalay ayaana lasoo bandhigay xirfado kala duwan oo ay ka mid ahaayeen samaynta mukeefyada nalalka, taasoo qayb ka ahayd farsamada gacanta gaar ahaan qaybta korontada. Dhalinyaradan baratay shaqo abuurkan ayaa fursad u noqon karta mustaqbalkooda si ay u horumariyaan hadafyadooda ku aadan una shaqeeyaan bulshadooda. Maxamed Qadar, Kunya Bro TV, magaalada Baraabe.